Kani waa Suldaan Xabiibi Maalig waa jilaa si weyn uga qayb qaata filimada wuxuuna sidoo kale ka mid yahay dhallinyarada isticmaasha baraha bulshada gaar ahaan barta loo yaqaan TikTok. asxaabta ku taxaan Xabiibi Maalig TikTok oo u jeedin waa maalin ugu horeysay oo labada mooto bajaaj darawal la'aan maxaa la miciisa ahay oo labada rabo waa makaanik sameeya mootooyinka marna waa macallin waxbar dhalinyaro fara badan oo qaarkood jaamiciyiin la shaqada makaanig waaye social media waa saa qiyaasa macnaha waad aragta anigoo wax duubaayo midda kala badan meesha waxa waaye breefod waaye waxna lagu sameeyaa dadkan macnaha dhalinyarada oo ama jaamacadaha ay waxyaabaha oo macnaha xilligeena shaqadii kale yihiin practical inta u maadaan oo lagu siiyo sida loo sameeyaa sida u jeed meesha shaqada ka socoto ilmaha hayaan u jeed amaleeya aniga madax banaanka kaliya wax u sheegaya sida loo sameeyayo sida macnaha inta ka yeel inta sabirsa ku yaalo oo qalab janjiga lagu gado alaabta macnaha halaawdo luqto kala luqtaan oo kale biyaha gaaray shanqare keentay janjiga lagu sameeyo alaabta laga bedela wuxuu soo kordhiyay hab cusub oo casri ah kuna saleysan wadista mootada loo yaqaan bajaajta oo darawal la'aan la wadayo asigoo adeegsanaya xarig yar waxaan fiirdan waxa ugu dhaliyay waxa arkay aduumaadka waa aragta amaleeya dad badan ayaa waxyaabo badan sameeyayaan haasi dabdamiska oo kale waxa dabdamis macnaha oo qof la'aan oo waxa arkaysa wax daminaayo dawq inta soo biyaan oo kale to hada oo damina dadna kuma jiraan si Soomaaliya oo kale waa aragta qof waxa leeyahay meel oo dabdamis ay gashay amal naqsa ku xirmay waxa ka maqan qalab waxyaabo isticmaalaan marta waxa rabo in loo kaaftoomo darawal la'aan macnaha darawal la'aan loo kaaftoomo oo kaligeeda macnaha labada qof gadaal iska koro baasiriga iska dhiibo oo kaliya waxa rabo Ilaahay insha Allah taala sanad soo socdaana ee sabaxda rabo Ilaahay ina had saad hor ugu jeedo aragta amaleeya macnaha had ka macnaha waqti tijaabadna ku guuleysan indhaha macallin ahaayeen mootadan wada kaxeynaya waxa loo keenay inuu farsameeyo kadibna uu ka soo saaro mooto qurxoon balse hadda wuxuu baroobaynayaa mootadan oo motorkeeda la hagaajiyay ni horta meeshan waxa waaye garaash lagu hagaajiyo mootooyinka nooc ayuu xeetaa waa taqaan 3 lugood ay jirto 4 lugood ay jirto 2 lugood ay jirto 2 lugood ka nooc badan kala sii leh mid 4 busna jirto oo 9 mar shaqalayso mid 2 busna jirto 7 mar shaqalayso mid 1 busna jirto oo 5 mar shaqalayso feekonta badan balad feekonta badan kuwa 9 busna waxa farsamada waa adag tahay nimo taa macnaha oo yaqaano farsamada ama soo bartay aa ka shaqeey karo tan oo kale motorka Talyaani waay like body shiinas waay heshiis wada galeen saas oo kale tamcaan loo isticmaalaa geed waa loo xiriirina kuma oo kaliya kaxaynta mootada bajaajta balse wuxuu caan ku yahay kaxaynta mootada loo yaqaan Falcon oo dhowr filim uga soo qayb qaatay jiritaankooda mara badan ku jireen laakiin waxa khatarteeda badan iyo khatar badan la kulmaa mar mootadii adoo macnaha qof gadaalkaas aan xabad ridaado isdhees macnaha jeelada ayub la gal amal meelo ku mashquul masaaka dhacay ambaash balance macnaha baahanta waan taqaana simbar mooto lagu qofka dambaabay qofka ruuxa wada mal boojo waay kanta maxamed asnu xijiyo balance meesha ku dhumay qasaare ayaa ka imaan karto dad badan ayaa daawada Suldaan Xabiibi markuu sidan oo kale mootada u kaxaynayo kuwaas oo qaarkood ka cabsi qaba in mootada ay la dhacdo qaar ka mid ah darawalada kaxeeya mootooyinka bajaajta ayaa ay sheegay in Suldaan Xabiibi uu yahay shakhsi maskax furan isla markaana aad u hagaajiyay mootooyinka marka uu farsameynayo aniga waxaan ahay macaamiisha oo u sameeyay mootooyinka intii mooto lay sameynayay nin macallinimo ku dhan ma arkin asaga waxa waaye wuxuu sameeyaa motorka uu fiirina ogaana markuu motorka ogaado sharqantiisa iyo waxa dhan markuu ogaado meesha laga hayo ku sheega isla markiina waa la sameynaa Axmed Maxamed Cabdullaahi ayaa ka mid ah dadka wax baray macallin Xabiibi Maalig wuxuuna ka sheekeynayaa wuxuu ka faa'iiday muddada uu la joogo Suldaan dadku wax ka baranaya garaashka ka mid ah macallinkan dad badan oo wax baray ilaa hadda garaashkan jooga waxaan ka baranaa waan ka shaqeeyaa halkan waa geerish ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Shibis waxa macallinka ah wiil aad u da'yar lagu magacaabo macallin Xabiibi waxa halkan wax ku baraa dhalinyarada Soomaaliyeed oo aad u bartay makaanika sidoo kale wuxuu ku soo kordhiyay habka mootooyinka wadis casri ah oo ay jecleysteen dhalinta ku nool magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya intooda badan Maxamed Xuseen Arke Muqdisho